horta ugu dambeyn waxaan leeyahay waa ujeedin dawanan only macda YouTube channelkan hadaa fiirsanoosid intan aad soo gaartay subscribe sar and YouTube wax enjoy ugu yahay taqaana like share comment dhammaan enjoy ugu dhig insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا بر الباب جوتان يسوي بمقال إذا عدوا دي سوغاري كسر دوالي برامج كتتنقلت كراديها أفقوية برامج كتتنقلت كراديها أفقوية وبرامج انت أفقو لجلنا بيشا بركة سنة رمضان أتكلم يسن دونتان إذا عدا أفقوية ردي برامج كان سنة كانوا حيلوتها بقلنا يا دوسي وسط يا سرايا الخمر وعلى سورة كلا دوسي وقمر كساعة سؤالها وقدر كما هي برامج barnaamijka waxaa maanta ku tartamaya xaafadaha kala ah Damaley iyo sidoo kale xaafadda Fayuma waxaan ka rajaynaynaa in xaafadahaasi tartamaya ay nala ilaaliyaan shuruucaha barnaamijka u degan haddaba ciddii ku xadgudubta qodob ka mid ah qodobada u degan barnaamijka in ay weyn doonto dhibcaha maanta ay ku tartameen waxaan u gudbinayaa markan Maxamed Saciid Xalane si uu sharaxaad inoogu bixiyo xaafadaha iyo qaabka su'aalaha loogu bilaabi doono. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابتا قارهان دمري وفيوما أدوك ما سنتين سولو هذا وحروا أسي سؤالها عندي لو بلاغي لها أهلها قطور وسبعنا من حلقة صوت السنة حلقة فقصة الدمري وحلقة فيوما سي عبد هلكا نقول بشان ترتنك سؤال عندي لو بلاغي لها قطورها مرة صوت الصدى إنه ما الوريال سيقطور وقبلاتها waxaan u bilaabay doonaa Damaley oo markaas laba toddobaad qabsatay waxaan akhrin doonaa nawicitaanka lambarada markaas laga soo wici doono asxaabta markaas fadhisa tartanka oo xaafadaha laga soo qaadi doono xaafadda Damaley taageerayaasha waxay ka soo wici karaan eber 68 34 eber 9 55 aan ku celiyo Damaley waxaa ka soo wici kartaan asxaabtiina ama xaafadiina inaad caawisaan su'aal markaas markii la weydiiyo jawaab aad ugu soo dirtaan lambarkan ah إبر لي حال سديد صدر الأفر إبر سجال شمشان وفي لي أنا قرتين الحافظة في يوم وحلقة صور إكرام لمركا إبر لي حال سجال سديد الأفر صدر سدح طبعا أقول عليه في يوم وحلقة صور قرتين ومركز أكاي قرتين وسؤال بوصل جاب قرتين أصحاب تودا وعلى قرتين إبر لي حال سجال سديد الأفر سدح طبعا ما لو حلقة لا يدرس عشاء دمري هو وهاجا سؤال كواد waxaa lagu bilaabi doonaa tartamayaasha xaafadda Damaley su'aasha labaadna waxaa iskale tartamayaasha xaafadda Fayuma marka waxaan ku celinayaa tartamayaasha inay nala ilaaliyaan sharciga barnaamijka u degan waxaa ka mid ah in sabaxanka iyo buuqa ay yareeyaan markii su'aal ay ka jawaabaan oo guddigu u soco oo ay dabaaldegayaan waa in sabaxanka iyo buuqa ay yareeyaan sidoo kale haddii su'aal la weydiiyo oo loo yeero 3 jeer imaan waayeen 3 jeer haddana loo qabanayaa haddii ku imaan waayeen waxay la mictaa inaysan soo soconin waxaan si kafaadaysaan oo hordhigeynaa su-aashaasi gruubka kale ama xaafadda kale la tartamaysa saasay ha ogaadaan xaafadda 3 jeer haddii ay dhacdo stuudio albaabkiisa qofma kasoo gali karo sababtoo ah 3 jeer oo tirina 3 jeer oo ku imaan waayeen hadhow yaysan dhicin in ay markaasi midaas door laga keeno marka waxaan rajaynaynaa inay sharciga barnaamijka nala ilaaliyaan moobeeldeeda iyo xaafaddii lagu qabto guddiga ayaa dhex socda barnaamijka haddii lagu arko waxay la micnata inaysan tartankaasi maanta wax natiijo ah ku lahayn sidoo kale haddii lagu arko internet iyagoo isticmaalaya waxay la mid tahay inaysan maanta dhibcaha tartanka ay ku helayan inaysan heli doonin marka inay nala ilaaliyaan ayaan rajaynayaa labada xaafadood Damaley iyo sidoo kale Fayuma waagaag dhegeystayaal barnaamijkeena ayaa noo bilaaban doona su-aasha koowaad waa Damaley waa su-aal diini ah waxayna u dhacaysaa sidan Cumar bin Khadaab alle ha ka raali noqdee waa saxaabi jaliil ah kana mid ahaa khulafaa uraashidiinta ahaana khaliifkii labaad ee muslimiinta haddaba sheeg magaca saxaabigii imaamka ka noqday janaasadii lagu tukanayay Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu
tartamayaasha xaafadda damaley su-aasha waa diini waxay u dhacaysaa sidaan cumar bin khadaab radiallahu canhu waa saxaabi jaliil ah kana mid ahaa khulafaa uraashidiinta ahaana khaliifkii labaad ee muslimiinta haddaba sheeg magaca saxaabigii imaamka ka noqday janaasadii lagu tukanayay cumar bin khadaab radiallahu canhu markii saddexaad tartamayaasha xaafadda damaley su-aasha waa diini waxay u dhacaysaa sidaan cumar bin khadaab alle ha ka raali noqdee waa saxaabi jaliil ah kana mid ahaa khulafaa uraashidiinta ahaana khaliifkii labaad ee muslimiinta haddaba sheeg magaca saxaabigii imaamka ka noqday janaasadii lagu tukanayay cumar bin khadaab radiallahu canhu waxaan filayaa inaad garateen tartamayaasha xaafadda damaley jawaabta saxsan aad keeni doontaan insha allah waqtiga wuxuu soo indaaday tartamayaasha xaafadda damaley jawaabta tartamayaasha xaafadda damaley jawaabta tartamayaasha xaafadda damaley jawaabta su-aashan oo ahayd tii koowaad ee barnaamijka guud ahaan iyo tii koowaad aan weydiino damaley jawaabta ay keeneen waa mid sax aan ahayn haddii ay ka faa'iidaysanayaan tartamayaasha xaafadda fayuuma ka faa'iidaysiguna waqti malaan fayuuma jawaabta tartamayaasha xaafadda fayuuma jawaabta tartamayaasha xaafadda fayuuma jawaabta kow bismillah aniga mid ka mid ah tartamayaasha xaafadda fayuuma su-aasha darasudee waxay tahay sacad bin abi waqaas jawaabta waxay tartamahaasi xaafadda fayuuma ka socday saxiixada guddiga maalin su-aashan waxaa xaq u lahaa xaafadda damaley way garan weyso waxaan hordhignay fayuuma si ugu faa'iidaysto fayuuma ayana waxba kuma soo kordhiyo haddii labadii xafadood ay hareeri waayeen jawaabta saxda ah guddiga waagaan su-aashaas jawaabteeda maalin waxay noqon doontaa saxaabigaas wuxuu ahaa suhayb al-rumi radiallahu canhu waxaan filayaa inay garteen tartamayaashaasi iyo dhegeystayaashaba jawaabta saxda su-aashan waa su-aashii labaad su-aalaha guud iyo tii koowaad aan weydiinayno tartamayaasha xaafadda fayuuma dhagaa fara su-aasha waa deeni waxay u dhacaysaa sidan abubakar sadiiq radiallahu canhu waa saxaabi jaliila kana mid ahaa khulafaa uraashidiinta ahaana khaliifkii koowaad ee muslimiinta haddaba sheeg magaca saxaabigii imaamka ka noqday janaasadii lagu tukanayay abubakar sadiiq radiallahu canhu waqtiga waa uu soo idaaday tartamayaasha xaafadda fayuuma jawaabta tartamayaasha xaafadda fayuuma jawaabta bismillaahi raxmaani raxiim aniga mid ka mid ah tartamayaasha xaafadda fayuuma su-aasha darasudee waxay tahay suhayb bin sanaan jawaabta waxay tartamahaasi saxiixada guddiga su-aashan oo ahayd markaasi tii koowaad fayuuma aan weydiinay guud ahaan tii barnaamijka labaad jawaabta fayuuma ay ka bixisa waa mid sax aan ahayn haddii ay ka faa'iidaysanayaan damaley ka faa'iidaysigu waqti malahan tartamayaasha xaafadda damaley jawaabta tartamayaasha xaafadda damaley jawaabta tartamayaasha xaafadda damaley jawaabta damaley jawaabta kow damaley jawaabta labo damaley jawaabta saddex maxamed su-aashan oo markaasi aan weydiinay xaafadda fayuumana markaasi garan weysay si ay ugu faa'iidayso damaley ayaan hordhignay damaley wicitaankii ayaa 3 jeer sii dhaafay oo laba ayay si ugu faa'iidaystaan sidaas darteed jawaabta ayaa markaasi bixin doonaa su-aashaasi saxaabigaas wuxuu ahaa cumar bin khadaab radiallahu canhu waa tii saddexaad su-aalaha guud iyo tii labaad aan weydiinayno tartamayaasha xaafadda damaley waa taariikh waxaynu u dhacaysaa sidan ciidamadii gumaystihii talyaaniga ee haystay magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa ciidan u diray magaalada ceelbuur si ay halkaasi ugu soo dhisaan maamul mahmiyadeed talyaaniga raacsan ciidankaasina waxaa hogaaminayay nin la odhan jiray kabtan corley haddaba sheeg sanadkii la diray ciidankaas
tartamayaasha xaafadda damaley jawaabta tartamayaasha xaafadda damaley jawaabta saddex jeer idin tiri doonaa damaley jawaabta kow بسم الله الرحمن الرحيم أنا بعمل مدرسة حافظ دملي سؤال جواب جدا دارس دوا كل سديد بقول سجاش بيكون jawaabta ruuxiyey tartamahaasi ka socda xaafadda damaley sax iyo qalad guddiga su-aashan waa tii saddexaad guud ahaan barnaamijka iyo tii labaad damaley aan weydiino damaley jawaabta ay bixiyeen waa mid sax aan ahayn ma qofkaan qof ku saaran waa tahay 14 su-aalood aan ugu talagalnay tartamayaasha xaafadaha damaley iyo sidoo kale fayuumo waa soo idlaadeen haddaba natiijadii iyo waxyaabay ay keensadeen xaafadaha maxamse waayahay maalow maanta damaley iyo fayuuma ayaa sheekanayay damaley iyo fayuuma waxay markaasi halkan yimaadeen kontura loo sameeyey su-aashkooda waxaan ku bilaabnay xaafadda damaley damaley todoba su-aal waxaan ku lahayd todobada su-aal aan weydiinay waxay ka jawaabeen ma jirin dhammaan todobada su-aal waa ay gufeen balse meesha waxaa ku yaaleen laba su-aalood oo kasoo korantay walaalahooda ay ka faa'idaysteen labada su-aal markii ay ka faa'idaysteen waxay saas ku leeyihiin laba dhibcood xaafadda kaleente ee la yidhaahdo fayuuma maanta waa ay tartantay ayna sidoo kaleente todoba su-aal aan weydiinay todobada su-aal 6 ka mid ah ma ka jawaabin hal ayay ka jawaabeen sidaas way faystaan labo maanta waa la isku barbacay markaasi labada dhinac bareejay noqdeen laba iyo laba ay faysteen tartanka saasoo ku adkaa qosolka kaasoo ah marka ma ka duuna maanta tartamadii aad buu xiiso u lahaa ilaa qeybaha dambe weliba waxaa la isugu soo kuusay waxay ahayd qeybihii dambe su-aalihii ahaa haddii damaley su-aasha faa'iidaysiga aysan heli lahayn damaley waa laga badin lahaa hore ka faa'iidaysteen waa ka faa'iidaysta marka laakiin khatara loo muto aad marka hambaliyo damaley hambaliyo fayuum labada dhinacba waxaan rajeynaynaa kulamada kale ee soo socda in ay markaasi dadaal iyo ay samayn doonaan guud ahaan barnaamijkii kulanka barnaamijkeeni intaanu soo gabagabeynin cafwan beriya tartami doonaa website waayahay berintooda waxaa tartami doonaa xaafadda raqayle iyo ceelkooda iyo raqayle waxaan leenahay waqtiga naga soo dhora halkan waqti looga talagalay ku imaada barnaamijkan waa tartanka ee kulanka barnaamijkii tartan aqooneedka ee aad iyo aad weya dhegeystayaal waa naginta maada ayaa barnaamijka dala socodsiinaya guddiga jaamacadda waa maxamed saciid xalane dugsiga hoose dhexe iyo sare ayaa tamarna waxa uu taagelinaya sanadkan tartanka su-aalaha lagu tartamayna waxaa soo diyaara iskuulka barnaamijkan mid lamid ah kuma doon beri sidaas nabadgelyo farsamadana wuxuu ahaa